waxaana wanaagsan dhammaantiin saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya qodobada xilligan aan idin hayo waxa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay beesha caalamka oo si la yaab leh u go'aamisay xilliga iyo halka uu ka dhacayo shirka madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa golaha mustaqbalka Soomaaliya iyo beesha caalamka oo soo xirtay dhammaan isqabqabyadii dhinacyada ka jiray haddaba miyaa hoos loo dhigay awoodii madaxweyne Xasan Sheekh warbixin ayaan idinkaga soo gudbin doonaa insha Allah dowladda federaalka Soomaaliya oo si rasmi ah shaaca uga dhigtay inay soo iibsatay diyaaradaha casriga ah ee F6 iyo wasiirka gaashaandhigga fiqi oo ku faanay in dhawaan ciidanka xoogga dalka ay dhigi doonaan cashiro waaweyn oo lama filaan ah qodobada kale waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo karbaashay siyaasiyiinta mucaaradka ee diidan in la dhameystiro wax ka beddelka dastuurka iyo isagoo daboolka ka qaaday in xukuumaddiisa ay iska diiday in meeshii shalay la sii fadhiyo iyo dowladaha Sacuudiga iyo Turkiga oo si wadajir ah u taageeray madax banaanida Soomaaliya kadib kulankii cuslaa ee madaxweyne Erdogan iyo dhigiisa Maxamed bin Salmaan ka hogaamiye Sacuudiga dhexmaray qodobadaas aan ku faahin doona barnaamijka insha Allah fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe tan iga ilaabin sidoo kale muuqaalka aad daawanayso like ta ka ilaabin aad u mahadsantihiin macluumaadyo aynu helnay waxay sheegayaan in beesha caalamka ay si la yaab leh u go'aamisay xilliga iyo halka uu ka dhacayo shirka madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa golaha mustaqbalka kadib markii maalmihii la soo dhaafay isqabqabsi xoogan uu ka dhex jiray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxda golaha mustaqbalka Soomaaliya oo ay ugu horeeyaan Siciid Deni iyo Madoobe ayaa hadda waxaa soo ifbaxaya isla markaana banaanka yimid in arrinkan ay si rasmi ah u soo faragelisay beesha caalamka isla markaana ay hadda qaadatay go'aanka shirkaas uu ku qabsoomayo halka uu ka qabsoomayo iyo sida uu dhacayo intaba beesha caalamka ayaa fariimo kala duwan oo cadaadis ah u dirtay madaxda Puntland iyo Jubbaland iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxayna ku amartay in shirka ay ka soo qayb galaan haddaba maxaan ogaanay saacadihii la soo dhaafay warbixinadii ugu dambeeyay aynu helnay waxay sheegayaan in xubnaha wakiilada beesha caalamka ay go'aamiyeen halka shirka uu ka dhacayo iyo waliba in xilliga uu qabsoomayo wararku waxay xaqiijiyeen isla markaana ay tibaaxeen in wakiilada beesha caalamka ay markaas iyagu go'aamiyeen in shirka uu ka dhaco xayndaabka xarunta Xalane isla markaana uu qabsoomo 10 Febraayo ee toddobaadka soo aadan madaxda Puntland iyo Jubbaland ayaa lagu amray inay soo gaaraan toddobaadka soo aadan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho si ay uga qayb galaan shirka isla markaana shirka uu noqdo mid guuleysta warbixinadii ugu dambeeyay waxay intaasi ku darayaan in Siciid Deni iyo Madoobe loo ogolaaday in ilaaladooda ay la yimaadaan magaalada Muqdisho madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kaalintiisii ama awoodiisii waxay u muuqataa mid hoos u dhacday maadaama la go'aamiyay shirka halka uu ka dhacayo iyo goorta uu qabsoomayo waxay ka dhigan tahay in Siciid Deni iyo Madoobe ay u hoggaansameen amarka wakiilada beesha caalamka beesha caalamka ay waxay sheegtay in shirkaasi uu ka dhici doono agagaarka halka ay iyagu joogaan ee Xalane isla markaana uu qabsoomi doono 10 Febraayo wixii ka dambeeya isla markaana aysan jiri doonin wax kale oo dib u dhac ah oo imaan karaya iyadoo la filayo in isbuuca soo aadan bilowgiisa ay magaalada Muqdisho soo gaaraan Siciid Cabdullaahi Deni iyo Axmed Maxamed Islaam Madoobe waxaana ay u imaan doonaan shirkaasi in laga qayb galo beesha caalamka waxay ku celcelisay isla markaana ay u sheegtay dhinacyadani in ay san ogolaan doonin in shirkaasi uu fashilmo xitaa waxay sheegtay in ay diyaar u tahay in shirkaasi uusan noqonin mid lagu kala tago oo fashilmo haddii la isku yimaado xitaa oo ay tahay in heshiis dhab ah markaasi ay gaaraan dhinacyada arrintan ayaa waxay u muuqanaysaa mid dhammaanba lagu soo afjaray isqabqabsiyadii iyo dhinacyadaasi ka jiray maadaama hawada Muqdisho dhawaan laga celiyay ilaalada madaxda Puntland iyo sidoo kale Jubbaland arrinkaasi oo keentay in dib u dhac kale uu yimaado maadaama shirka qorshaha uu ahaa 1 Febraayo inuu furmo maantana bisha ay marayso 4 Febraayo 4 maalin oo dib u dhac ahna ay jirto hadda 10 Febraayo ayaa lagu ballamay beesha caalamka ayaana arrinkan si toos ah u soo faragelisay amaraadkana iyadoo bixinaysa arrinkan waxa ay dhabarjab ku tahay siyaasadii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxayna muujinaysaa in madaxweynaha awoodiisa hoos loo sii dhigayo waxa sidoo kale jira in madaxweynaha muddaxileedkiisa uu sii dhamaanayo isla markaana haatan aysan jirin cid si dhab ah wararkiisa u qaadanaysa maadaama khilaafaad xun ay jiraan dalkana uu kala tagsan yahay siyaasad ahaan madaxweynahana uu doonayo in howlihiisa uu sii wato ay ka mid yihiin in uu sii wado wax ka beddelka dastuurka lagu sameynayo oo ay aad u diidan yihiin Puntland iyo Jubbaland iyo siyaasiyiinta markaasi mucaaradka arrimahan oo dhan waxa ay markaasi ku soo aadayaan iyadoo xaaladda siyaasadeed ee dalka ay markaasi maraydo meel runtii aad iyo aad u xasaasi badan waa hagaag qaybaha hore ee wararkeena ayaad la socotaan markana
dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa si rasmi ah shaaca uga dhigtay inay soo iibsatay diyaaradaha casriga ah ee F-16 wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya oo maanta ka hadlayay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayaa wuxuu ku faanay in dhowaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay cashar weyn u dhigi doonaan cadow kasta oo Soomaaliyeed oo ugu horeeyo cadowga kooxda Shabaab wasiir Fiqi ayaa wuxuu sheegay in dowladda Soomaaliya ay hadda yeelatay mid ka mid ah diyaaradaha ugu casaysan dunida isla markaana diyaaradahaasi ay yihiin kuwa dagaalka ee F-16 oo ka mid ah kuwa ugu casrisan oo ay markaas dunida laga isticmaalayo diyaaradahan ayaa waxay yihiin kuwa markaasi qayb weyn ka qaadanaya dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada waxaa sidoo kaleeto arrintan la sheegay inay fariin u tahay Israa'iil oo iyadu doonayso inay kala qaybiso Soomaaliya kadib aqoonsiga ay siisay Somaliland wasiirku waxa uu sheegay in diyaaradahaasi ay yihiin kuwa hadda yaala magaalada caasimadda ah ee Muqdisho inkastoo tirada rasmiga ah ee diyaaradahaas uusan sheegin laakiin warar ayaa sheegaya in ilaa iyo 2 diyaaradood ilaa iyo 3 diyaaradood ay diyaaraduhu markaasi gaarayaan walow wararka ay sheegayaan in diyaaradahaasi Turkidu ay leeyihiin laakiin waxa la leeyahay Soomaaliya ayaa markaas iibsatay oo Turkidu ka iibsatay inkasta oo Turkiga uu ku qasban yahay inuu fasax ka soo qaato Mareykanka marka diyaaradahaasi dalal kale uu ka iibinayo walow ay isla farsameeyaan hadda Turkida iyo sidoo kaleeto Mareykanka diyaaradahan ayaa wax badan ka bedeli doona awoodii ciidanka cirka Soomaaliya iyo sidoo kale awoodii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyadoo la filayo in markaas wax badan ay iska bedelaan sida haatan ay wax yihiin waxaana dowladda Soomaaliya ay hadda u muuqanaysaa mid gaari karaysa guulo la taaban karo wax ku oola hagaag barnaamijkeennii wararkeena ugu dambeeyay la socotaan saaxiibayaal markana aanu eegno ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ayaa weerar afka ah ku qaaday siyaasiyiinta mucaaradka isagoo si weyn u karbaashay waxa uu ku eedeeyay inay diidan yihiin in hore loo sii socdo oo wax ka bedel lagu sameeyo arrimaha ku saabsan dastuurka ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre oo difaacay xukuumaddiisa ayaa wuxuu sheegay in dalka uu hore u soconayo isla markaana aanan loo joojin doonin isla markaana loo sii fadhin doonin siyaasiyiinta iyagoo caadeystay mar waliba war xumo ay la fadhiyaan miisaska wada hadalka ra'iisul wasaaraha waxa uu sheegay in xukuumadda isaga uu hogaamiyo ee dan qaran ay iska diiday in la iska fadhiyo oo aan hore loo sii socon waxa uu sheegay in uu isagu go'aansaday in la qaado tallaabooyin wax ku ool ah oo wax badan looga bedelayo xaaladaha Soomaaliya ay hadda ku jirto oo ay markaas ka mid yihiin arrimaha wax ka bedelka dastuurka iyo hore loo sii socdo ra'iisul wasaaraha waxa uu sheegay in siyaasiyiintaas diidan hor u socodka yihiin kuwa faashilin ah isla markaana ku fashilmay siyaasadda aragti macquul ahna aan markaasi keensan karin dalka iyo waliba dadka Soomaaliyeedna waxa ay ka gadaan oo ay siyaasadda haysan jirin waxa uu sheegay in xukuumaddu ay hore u wada doonto arrimahan hadalka ra'iisul wasaaraha ayaa u muuqda in ra'iisul wasaaraha uu doonayo in wax ka bedelka dastuurka la daadajiyo oo horey loo sii socodsiiyo taasi oo weli dhaliisheedu ay taagan tahay buuqii ugu dambeeyay baarlamaanka ka dhacana arrimaha dastuurka ahayeen ugu dambeyn saaxiibayaal dowladaha Sacuudiga iyo Turkiga ayaa bayaan rasmi ah ay soo saareen waxay si wadajir ah ugu taageereen madaxbannaanida Soomaaliya kadib kulan magaalada Riyadh ka dhacay oo dhaxmaray madaxweyne Erdogan iyo sidoo kaleeto dhigiisa hogaamiye Sacuudiga Maxamed bin Salmaan iyo Erdogan ayaa kulan saacado badan qaatay ku yeeshay Riyadh waxayna soo saareen bayaan wadajir ah oo ay uga hadlayaan xaaladda gobolka waxay si dhab ah u taageereen madaxbannaanida Soomaaliya iyagoo sheegay inaysan marrabo ogolaan doonin in la kala qaybiyo Soomaaliya